hal magac baad maqlaysaa waana Manchester United Allah maxay xoog badan yihiin maxay tahay koox lagu kalsoonaan karo maxay tahay koox xataa haddii laba gool laga dhaliyo still aan aamini karin inay soo noqon karayaan Premier League boqoradu waa iyaga markay gool lagu lahabaan maraha iska dhawa Manchester wax laga qabtaan waa kuwa kaaye waana Manchester ka waraya aad u muuqatay jacbur tahay war Manchester oo la soo adkeeyo wax ka qaban kara ka war Manchester tan aad arkaysa xaalkeed Ilaahay iska og yahay haddii gool lagu bilaabo kalsoonid ku qabtay inay ka imaanayaan kooxda ka imaanshaha soo laabashada cajiib bay shalay sameeyeen Yan Federer oo Southampton ka tirsan baana ku bilaabay gool United daqiiqadii 26 ciyaarta with a bit of space to line one up and score an absolute cracker. Southampton are digging in the relegation scrap and have Manchester United. William Bow goal ka dhaliyo laakiin Andres Pereira ayaa bumbarna kaga siiyo gool wax kala halka ka dhaliyo wax laga qaban karin oo ciidamadiisa la haysan karin ba He takes on the strike himself. That is glorious. You simply don't save those. kadibna Lukaku ayaa goolka labaad dhaliyay daqiiqadii 59 ciyaarto Manchester Southampton waxay ku tiri Kenny Gish way ka bareejay wayna ugu dareen Lukaku room for the shot and he finds the corner and Manchester United have turned the game right around. musalsal qurux badan buu ahaa wixii ka dhacay Old Trafford mar walbana labadan markay ciyaarayaan Southampton iyo Manchester sidan bay isugu gool isku fardhiyaan oo James Ward-Prowse ayaana ka bareejay oo laba gool ka dhigay waxay xilli ciyaareedka markii ugu horeysay laba gool oo banaanka laga toogtay indigay laga dhaliyaa And that is why it's another stunning goal in this game which pulls Southampton level again. balse Lukaku ayaa afjaray ciyaarto lugta midgeed ku tuuray darbad xoogan oo ka dhaliya goolka waxaanu ka dhigay ciyaarta 3 gool iyo 2 gool Manchester dhan bay Old Trafford isku qabsatay oo way dabaaldegeen oo way badiyeen ogow waa markii sagaalaad taariikhda Manchester ay ka soo noqonayso goolal ay ku horumartay Southampton ay ka badinayso waa kooxda Manchester taariikhda ay ku sameysay Southampton Manchester waxay Southampton ku sameysay taariikhda kambagi ugu weynaa waana muddo 9 jeer oo ay Southampton gool ku horumarayso Manchesterna ay soo noqonayso ka bareejinayso ka badinayso ugu markii ugu horeysay taariikhda Lukaku Premier League laba ciyaar isku xiga Premier League inuu 2 gool ka dhaliyo kana 2 gool ka dhaliyo waana markii ugu horeysay intuu soo joogo laba ciyaar isku xiga inuu gool ka dhaliya United wallahi waa wax kale ya macallimiinta comeback Lukaku Manchester United find a way through and maybe find a way to win after a tight la shaki Manchester xagaaga dambe horyaalka Premier League oo tartamaysayo waliba waxay qayb ka tahay kuwa ugu cadcad ee xagaaga dambe ku guuleysan karo horyaalka karo Manchester xaalkeeda sidan iska ah baanan ka yeelin inaad ka badiso ka waran oo comeback samaynaysa Manchester oo luuji ka waran marka waa waxaan wax laga qaban karin City in kastoy hal gool ku badiyaan still waa hogaanka Premier League hogaanku way dib u wareegeen laakiin City bariyahan lama hayo ciyaarteeda ugu quruxda badnayd ciyaarteeda waxa ka maqan goolal baa ka maqan Selin waa wiil qasaariye gool ah dhowr jeer buu shalay gool qasaariye Aguero goolal kale uu qasaariye shalay ago De Bruyne waa ka dhaawacmay Stone waa ka dhaawacmay De Bruyne maalmo badan xataa ka maqnaanaya City meelaha laga soo kala galaya qaab ciyaareedka City no maya ma ahan mid horyaalka ka dhigi kara iyaga xaqooda inuu marayo way hooseeyaan wallow ay kubadoodii ciyaarayaan kubadooda waxa ka maqan goolashii faraha badnaa waa City goolaysanaysa baryahan hal goolaysanaysa aan ciyaarta dileen hal gool bay dhalinayaan oo ay ku dhameynayaan ciyaarta waa halkoona la soo gamo madax laga dhaliyo ma dileen ciyaarta halkii la wareegayaan meelaha 6 bay fardhinayeen 3 bay fardhinayeen hadda hal bay fardhinayeen hal gool bay u soo haray bari waa eber maalinta kale malaha waa laga badinayaa City waxa u roon in hadda si fiican motorkooda u kaco maxay waxa lagu jiraa 9 kulan ugu dambeeyay horyaalka lagu jiraayo waa xilli hawshu in ay qabyatiraan ay tahay Mahrez oo badal ku soo galay baana halka gool laga helay waa badiyeen waana hogaanka laakiin City islama hayaan ciyaartoodii fantastically well might get a shooting chance Mahrez will well they've had to be patient but the breakthrough has come
He just got the feeling they were starting. inta waxa ku dhan Premier League shalay la ciyaaray Arsenal baana hadda xalay ku hooyatay booska shanaad ciyaaraha wallo booska afaraad laga gaayo Manchester baa ku gashay 8 dhibcood Arsenal waxay haystaa 7 dhibcood oo shanaad bay ku jiraan 6 Tottenham baa ku jirto 6 dhibcood Tottenham baa iska loo saddexaad ku jirta Liverpool waa 69 dhibcood labaad City 7 dhibcood haddii Liverpool ay maanta adkaato mar kale iyagoo dib u wareegaya hoggaanka kanu marka waa ka ciyaaraha kaay Ingiriiska Talyaanigu ayagu shalay waa la ciyaaray kulamo qaar ba iska jiray oo Milan xataa hal gool bay kaga adkaatay Sassuolo Milan ayaantan waa wada ciyaaraho shalay go'aan gool bay iska dhaliyeen Sassuolo marka Milan aynu ciyaarteeda ku adkaatay Milan hadda waxay joogaan booska saddexaad ee ciyaaraha Talyaaniga wallahi Milan waa iskeentay sanadka kan ka wariya Milan saddexaad bay joogtay inta xataa waa ka saramareen toodka laga badiyay wallahi Milan waa iskeentay oo saddexaad bay maanta joogaan waliba shalay waa la ciyaaray oo Lazio xalay 3 gool bay Roma geeyeen Roma bariyahan waa ka taala Roma waa jal Rosmel baa la saaray waa laga badiyana marka waa kaayo kuwii kaay Talyaaniga ahaa ciyaaro badan oo Talyaanigu inay waa jiraan Juventus kuwa Cristiano Ronaldo war kuwa Ronaldo meeyay Napoli bay la ciyaareen war meesh maqar baa yaale Napoli Juventus tobanka iyo barka ciyaar bay tahayo aad u qotar aad u culus bay tahayo waa ka bal markaan waanu kala sikayno La Liga xalay waa la ciyaaray bal albaabka yixira Real waa ka taala Real waa ka dhamaatay Real waa ciidamad beeshay Barca baa xukumaysa Clasico iyaguba ugu guulaha badan Barca waa cadaabaysa Real Barca waa ku dhedheelaysa Real Barca way iska haysataa Real Barca waxay yihiin kuwa maanta boqorka Clasico waa boqoradu Clasico marka tiriska guulaha ay noqoto xitaa iyaga maanta ka guul badan Real Madrid والله ريال واعبودي صدح مالمود جهد بالله عيارض لوجو قراعية جورجودي بوحو النقضي كان برناباو جورجودي بوحو النقضي برناباو وحيدتكو قار ما أنت الليهين برشلونة وكحدة إسكيل اللي بقرون كليا تاجرياش ما أنت برشلونة يكون فانا يعني الليهين هذا نهاي برشلونة وحنا هي تاجرياش قرا إلا بقرون إسكاله هل كحبان هاي إلا بقرون إسكالوان هاي وريم حاد كله جدا يا هل كم نبدلين محاضرة بتاعن مية laba garoon baan haysanaa mid waa kamno ciyaaraha baan ku ciyaarnaa midna waa Bernabeu waynu ku tababarnaa kuleen halka ka waa kooxda kaliya baan nahay bay kuleen laba garoon iska leh midaan ku tababarno Bernabeu bay leeyihiin iyo midaan ku badino yaani aan ku ciyaarno garoonkeena kamno waxaan nahay kuwa qura ee hal laba garoon iska hela bay leeyihiin idinka isu keenaye bal u dulqaada Madrid isaaka sida lidinku maadayso waxaad shalay ahaydeen kuwii ugu guulaha badnaa Clasico maanta walidi kala wareegayo Clasico waxa guulaha ugu badan gaartay Barcelona gurigooda 3 maalmood laba ciyaarood weyn lagu garaacay gurigooda 3 maalmood gudahooda laba tartan oo weyn looga reebay Manchester United Real looga reebay haddana horyaalka laga ciribtiray waxa laga sareeyaa 12 dhibcood meesha maxay yaala 3 maalmood gudahood baa Clasico lagu ciribtiray Madrid laba ciyaarood weyn hal koob baa u soo haray waa dhagaweyne waana wax laga qaban karin ayaantan ciyaartii xalay ka dhacday Santiago Bernabeu mar kale Barcelona waa ku adkaatay oo ku guuleystay ciyaarta hal gool oo ciyaartii ku dhamaatay laakiin waxaan ognahay Real labadii ciyaar la soo dhaafay mustaxiil maqaar ciyaartay laakiin waa maqaar inuu ku badinaynin Real waxay ciyaaraysay labadii ciyaar la soo dhaafay waxa hadlay ninka la yiraahdo Carvajal wuxuu yiri kubadda cagtu ma inuu cadaalad falin kamal daariga wallahi inuu cadaalad falin buu leeyahay kubaddu ma inuu cadaalad falin buu leeyahay hadaan Madrid nahay waa sax Real Clasico-dii dhaweyd imidaanba way ciyaareen laakiin waa laga badiyay ma loogu cimaamadayo way ciyaareen ma loogu cimaamadayo waa laga badiyay natiijadu waa laga qaatay laakiin iyagu falfardi baa hadla wuxuu yiri habeenkii hore saddexda aan ku badayna xalay aan xogaa karooneen buu yiri
barsha ku dheedaa qabta Real bariyahan inay soo laba kaclaysay marka Real wixii sanadka dambe ku aadan malaha waxay sameeyeen arki doona iyadoo loo filay ciyaartoy weyn oo caalamka ay la imaadaan haddana Real xalay iyagu ayaa ahaa kuwa ugu fursadaha badnaa kuwa ugu shoodka badnaa kuwa ugu baaska badnaa haddana waa la garaacay marka Real waxay leeyihiin kubadda cagtu baynu cadaalad falin nooma cadaalad falin bayleen waan lagu garaacayaa Real waxa haysta saakay aan oo albaabka yixira Real way ciyaartay laakiin waa laga badiyay mar kale ayaa laga badiyay oo gurigooda lagu garaacay Barcelona waxay yihiin kuwa hadda iska haysta kuwa kale ku raaxaysanaya goolka guusha halka gool ee qura ciyaartan wuxuu yimaaday daqiiqadii 66 ciyaarta waxaana dhaliyay Rakitic waxaana ka caawiyay Roberto wuxuu ahaa gool qurux badan oo u muuqday gool Messi-eedka Ramos oo daba ordaya iyo kartu hor jooga hal mar buu qaadayo waa Messi alaabtiisii oo kale oo muxuu kala joogaa odaygu Messi haddana buu goolka sida yeeli karinba waanu dhaliya goolka qura ee classic xalay go'aamiyay Turn ball from Sergio Roberto, Rakitic in the area, dinks it over the keeper. Ivan Rakitic makes it 1-0 to Barcelona, and once again, when Real Madrid seem to be playing this team, as they say here, de tout à tout, almost on top, you could say, suddenly find a killer blow, and this time. marka hay wakayo ciyaarta waliba qaybta labaad ciyaarta Madrid wax badan bay isku dayeen fashiliye Junior wax badan buu dagaalay Benzema Bale in badan Bale wax badan sameyn Leo Messi waa ciyaaray xalay laakiin aad bay u dagaal adag kala kulmay Ramos xalay isagu mar bay isdagaaleen oo Ramos iyo Messi dagaalmada aragtay labada kabtan xalay gacanta isla gari gaareen ya Ramos ba gacanta ku dhuftay in wajiga kaga dhuftay Leo oo madax xirta xanaaqsan xalay waa xanaaqayo Ramos laga celi way Leo daqiiqay maya waraw ku odaga nigu ma dadka aamusan mararka qaar bay saa u kacaan odaga waa celi waay ya ala ay hal barsha gool badan bay khasaariyeen 2-3 ay gaari kareen ciyaarta iyagu iska khasaariyeen Madrid ayuu fursado badan bay khasaarisay ciyaartii xalay oo ayaan ku adkaan inay ku dhaliyaan gool kama dambaysi ciyaarta garsooru ciyaarta baa go'aamiyay xalay in classico ay ku adkaatay barsha mar kale 3 maalmood 2 gool dabaaldeg bay ku sameeyeen garoonka bikay baan hogaamiye u yiri wariyaahe aan dabaaldegno oo aan garoonkooda u cariisiino waxay qaadanaysaa Barcelona maalmii ugu quruxda badnaa waligood Real waligeed ma ilaabi doonto ceebta ka soo gaartay sanadkan classico afartii kala sila kulmayna waa markii saddexaad oo laga badanayo xilli ciyaareedkan Barcelona waxay xalay noqdeen kooxdii ugu horeysay taariikhda tartamada oo dhan garoonku Santiago Bernabeu 3 ciyaarood ku soo garaacda kuwa kan Real Madrid bay noqdeen waliba Barca kaliya ma ahan in 3 kaliya ku garaacayaan kuwa kanu 4 jeer bay la liig ku soo garaacayaan xiriira 4 sano isku xigta ayaa Real garoonkeeda lagu soo garaacay horyaalko garoonka malaha waa sababtay u leeyihiin garoonka aan leenahay wamidaaba keenayso Bernabeu waa lagu haystaa nimankanu Barcelona 4 ciyaar isku xigay hadda liig ku soo garaacayaan classico Real Madrid markii ugu horeysay taariikhda la liiga abid waa markii ugu horeysay Barcelona awood u yeelanayso 4 sano isku xiga Bernabeu inay ku soo adkaanayso horyaalka way tageen 4 eber bay ku soo dhufteen way tageen 3-2 bay ku soo dhufteen way tageen 3 eber bay ku soo dhufteen way tageen 1 eber baa lagu soo dhuftay isku dar Barcelona waxay ka dhalisay Real Madrid 4 ciyaar la soo dhaaf horyaalka kula ciyaarin Bernabeu 12 gool iyo 2 gool ya wuxuu ma garanaa Damis waa Gatefo yahu 11 gool iyo waxa laga soo dhaliyay 2 gool marka horyaalka kanu la liigana hadda wuxuu sii marayaa dhanka iyo Barcelona 2 koob bay hadda meel sii dhiganaysaa dal Real finalka joogan ila liigu xaliba xaqiijisteen in badan oo kamid horyaalkan maxay la Barcelona kulmada u haray ilma leewa inta ugu muhiimsan waa soo dhaafeen marka Barcelona 2 koob hadda u sii carbuuno meel u yaala hal Champions League bay u dagaalami doonaan Lyon bayna la ciyaarayaan ogowna 4tii classico ee ka dhacay Bernabeu Barcelona ku adkaanaysa ugu dambeeyay horyaalka waana taariikhda kooxda ugu horeysay Barcelona waana markii ugu horeysay taariikhda Barcelona ay abid classico 4 ciyaar saxiix kuwa kan ku soo garaacayaan horyaalka 11 gool iyo 2 gool bayna u jumciyeen kuwa kan ya waxaad kala ogaataa
ninka la yiraahdo Solari Santiago Solari waa tababari ugu horeeyay Real Madrid ku guul dareysta inuu wada badin waayo dhammaan saddexdiisii ciyaarood ee uu Madrid tababaro u haw Barca ka hor yimaaday laba waa laga badiyay hal la bareejo galay ninkii ugu dambeeyay Madrid sidan ay ku dhacday waxay tababaro u ahaa ninkii la oran jiray Lipenguer 1987 markaas oo laba jeer laga badiyay Madrid labana ay bareejo gashay Real saakaysa waxay leedahay waxaan hubaa in Barca madaxeeda lagu maadeysanayo waxaan hubaa bay leeyihiin in Barcelona madaxeeda lagu maadeysanayo oo meel kasto lagu sheegayo lagu ceebaynayo waa sax oo Barcelona Real waa ka diriday marada wallahi aanan rasaakay Real Madrid loo cimaamadi karin ya war ma safiiloobe mise waad garanaa doodeen marka saddex maalmood guriga ku garaacayo Real ida qiraysa waxay leedahay waan hubnaa saakay in Barca madaxeeda lagu maadeysanayo masiibo marlay ku baxayaan yiri haya maxaa loo baahayaa marka si looga mooda warka wakaas si looga mooda wayaan dhaydan waa leedin raacaye wax warka yahay sad ugu badinaysan ciyaaraha kale Clasico mala hadaynan Champions League noqon xaga dambad kuwa kala kulmi doontaan magac iyo masiibo marbay baxaano sidee looga mooda warka inta waka marka xalay waa lagu kala baxayo Real Madrid waa laga badiyay wakay Tobrudo Karila inuu badiyo Messi ayaa ninka ugu caawinta badan Clasico tani lagu saddexdii Sergio Roberto iyo Xavi Hernandez waa labada nin ee ugu caawinta badan sameeyay kulankan waxay sameeyeen min 6 caawin marka Roberto waa nin qatar badan oo dhanku caawinta ku fiican waliba waxaad ogaataa Barcelona 3 ilaa takii ciyaar la soo dhaafay La Liga kuwa kan gool bay ka dhalaysayo waa record weyn oo aad u muhiimsan marka Real Madrid Real sanadkan waa la daakum baa laga dhigay oo waa la ciidaystay عيب عليك والله ما اسمه رمتها وروا دعدي لكن ريال waxay leedahay duruuf ma la igu diidaya waxan waa dhaceen miyaad iga kala tagaysaan ya oo miyaad igu nacaysaa waxa dhacaya Barca waxay ku kalifaysaa Real Madrid in la naca ayaantan Barca waxay ku kalifaysaa Madrid ku baryahaba kala jajabay ee makhwa Ronaldo raacay kuwana cabsooday kuwana Madrid taageer waxay ku sii qasbayaan inay kooxdiiba sii kala tagtagaan dadkiiba وكاي مدريد ظروف تشيغانيسا ساكاي dadal ma weeyay Madrid waa dadaashay laakiin yaa aad u dadaalayno marka waa kaayo Real waxay saakay sidoo kale leedahay alla marideed dhacdaya maridu saakayaan bageed ka saarnayn yaani waa classic oo aha kulan laba dhinac ahaan jiray inuu hal dhinac iska noqdo dhinac uu ku adkaado maalin walba ريالي أدوية كأرديس اللوم أويه إن الباب كان يكون تيمادي كوسو قرع على جوش مويانه وح كلا أتصمين كرتمجرتو وين المانك هذا كسبته
amase waxaa loo yidhi khalad ninkii galo waa khasaaraa khalad ninkii galo waa khasaaray oo Florentino Perez waxa maanta ku dhacaya Madrid isaga sababtiisu lahaa mid buu ka fasaxayo weyn bedelkiina maanu keenin waa madax adeegay Perez wuxuu lumiyay Cristiano waxaanu keenin rag kale u qalmi kara ninka in booskiisa bedelan horana waxa loo yiri khalad ninkii galo waa khasaara Barcelona waxay leedahay waxba kama soo qaadino waan ku quboojiyay waad quslaysay wax kala iska dhigaysay كما صغار واكو غبويا واسقاوسو وغسليسي وغيم باشا وغزاتي يلو غلط كاكشو وصل كاكا حاجاتي وانكو قيمي واكو قصاتي وغزارة وكا قياس ماله وكا مدريد غلط كي قلن بانا وحي هدا ما انت وعقابتي ذي مريسي تايو برايس وكايو مدريد شليدي هدا يو ما انت جرتو قفو شلاينيو ساكي برايس با شلاينيا warma adduunka idiga guuraya uu leeyahay yaa shalay bay maanta Madrid dhexda ka joogtaayo xilli ciyaareedkooda waa xumaaday Barcelona waxay leedahay anigu Sanlen rabaayo anigu Sanlen rabaa ku garaacun baan rabaayo si kale ma jirtaba Sanlen rabaaye anigu Sanlen rabaa ana rabaaye ana Sanlen wariya Sanlen waxa wala Madrid inay ka dhamaatay saakay oo Madrid aanu wahayn Madrid iyo xooga badnayd xilli ciyaareedku Madrid saambu ugu dhamaanayaayo La Liguna waa ka harayaan dal reeguna waa ka soo hareen Champions League baa u soo haray Madrid xagaageedii waa soo dhamaadayo Real waa ahaatay oo waa ka dhamaatay La Liga Barca ayaana hadda ku hogaaminaysa dhibca gaaraya ilaa iyo Barcelona waxay hadda horyaalka ku hayaan hogaankiisa 6 dhibcood iyagoo Atletico Madrid ay leeyihiin 5 dhibcood Madrid baa caaway ciyaaraya Atletico Madrid oo Sociedad bay la ciyaarayaan labada saac iyo barka Barca u fiicnaan lahayd caawa kuwa kale laga sii badiyo marka Barcelona ayaa horyaalka hogaan ku hayso 6 dhibcood oo mar kale horyaalka u socdaan ku guuleysigiisa Barca